جندب بن عبد الله رضي الله عنه وحليه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن رسول كان لا جوغني انغو دليره اسكو فيلا فتعلمنا القرآن كانوا برني ثم تعلمنا وحانوا برني هدنا قرآن كمعنيهيسي لفظيسي علمي معنيهيسي بانو برني إيمان بانو زياد سني عبادة نزياد سني صحابة دي مكي كور رميان رسولك اللي تشوغي صلوات الله والسلام عليه سيداسي أهاين سو رسولك تربيين شري عبد الله بن عباس إنا يرأى يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وتربية نبي سيني ودلين يرى markaad wax cunayso inaan yaho bismillaah dheh midigtana ku cun xeedada ama sixniga aad wax ka cunaysana xagga ku soo xigta gacanta ka geli nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku marka la wuxuu yaa gulaam ihfadillah yahfazuk ihfadillah tajidhu tujahak ilaahay ilaasho ilaahay wuu ku ilaalinayaa marka dhalinyaro tahay ilaahay ilaasho subhanahu wa ta'ala ilaali indhahaaga dhagahaaga qowlkaaga ficilkaaga qalbigaaga ilaali diinta iyo shariicada ku ilaali ilaahay waa ku dhowraya subhanahu wa ta'ala xadiidka markuu sharxayo al-Hafid min Rajab al-Hanbali kitaabkiisa Jaami' al-Ulum wal-Hikam san filayo marra ugu dambeeysan ka eegay laakiin waxaan ku arki jiray sharxiisuna aad baan u filayaa wuxuu keenaa markuu xadiista sharxinayo qisasna wuu keenaa nin odaya oo da'weyn oo dooni ku soo xidhatay badda ka soo booday dhulka ku soo degay xeebti soo socday markaas dadkii la yaabeen war ninkan shaybka sidaan u boodaya haddana nin sahlan ma aha ninkani markaasaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi odayna waa tahay boodadaaduna sidaan yadaad u boodaysaa waa sidee haadihi xawaasun xafidnaaha fi sigar xubnaha haddaad arkaysa buu yidhi annagoo dhalinyaro ah baanu ilaalinay markaanu dhalinyarada ahayn ayaanu xubnaha iyaga xumaaniya macaasiya dunuubka ilaalinoo diin baanu ku ilaalinay markaanu weynaanayna ilaahay baa noo ilaaliyey kaanu gabownay oo weynaanay ilaahay baa noo ilaaliyey subxaanahu wa tacaala waa sidaad ilaahay ula macaamisho haddii maanta adoo dhalinyaro ah salaaddii aad seegseegto oo salaaddii subax ka seexato oo casarkii ka seexato oo filimaan daawato oo maxaanka riwaayada daawato oo caawa dhan baalka ku dhex jirtay maanta oo dhan oo wax kale waqtiga ku lumisid oo maxaanku idhaahdaa heesa dhageysatid wax kale waqtiga ma la yaani ku lumisid indhahaagii iyo gacmihii iyo lugihii iyo maskaxdii iyo caqliga alla ku siiyay baad ilaahay kula dagaalamaysaa soo ma ogid markaad xumaanta daawanayso ama aad xumaanta dhageysanayso ilaahay inuu awood u leeyahay hal mar inuu aragga indhahaaga qaadi karo indhihii caadi oo saw kala furan nuurkii aragga inuu ka qaadi karo hal mar wax soo celin karaana ma jiraan soo ma ogid inuu hal mar maqalka dhagaha ka xidhi karo dhagahan isaga iskale adigu ma lihid waxa lagu siiyay inaad ku intifaacdo xaqa iyo khayrka ku dhageysato hal mar buu ka qaban karaa maqalka cadkan weynay meesha ku yaala waxba laguma maqlo maqalku waa wax ilaahay meesha ku sameeyay imisa dhagtu joogtaa oo maqalku maqan yahay aad aragtay uu qaadi karaa soo ma ogid inuu caqligaba ka qaadi karo kaad xumaha daawanayso ama dhageysanayso ama samaynayso hal mar inuu caqliga ka qaadi karo oo khalaas xubnahaagii jirkaagii waa joogaan laakiin ma fi aqal majnuun baad noqotay soo ma ogid hal mar inuu jirkaaga qayb kamida baqtiin karo lug iyo gacan iyo il iyo waaxdan inuu ku ridi karo hal mar adoo xumaantii ku jira cid soo celin kartaana ma jirto adduunka waxa jooga haday isu tagaan xubin ilaahay baqtiye ma soo nooleyn karaan jirkaaga iyo naftaada ha kula dagaalamin ilaahay caqligaaga ilaahay ha kula dagaalamin aqoontaada ilaahay ha kula dagaalamin maalkaaga Allah ha kula dagaalamin adoon ilaahay ka dambeeya noqo Allah markuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi alla wuxuu kala xidhayaa qofka iyo qalbigiisa
shawkaani markuu aayadda fasirayo sidee ilaahay qofka iyo qalbigiisa u kala xidhayaa fatxulqadiirka tafsiirka markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay qofkani macaasi buu samaynayaa ka noqon maayo wuu caadaysanayaa dabeetana hal mar baa ilaahay isagoo wixii ku dhex jira buu ilaahay geeri lama filaana u keenayaa ama caqliguba alla ka qaadaya caqliga ayuu alla ka qaadayaa wixii macaasi ee xumaan ee u caadaystay uu samayn jirayna adoogo waa ku raran yihiine isagoon weli ka soo hooyan oon ka soo noqon ayaa laga qaaday caqligii inta u hadhay noloshiisa waali iyo dayac buu ku dhammaysanaya aakhirana wixii baa la horkeeni doonaa marka iska ilaali qalbigaaga toobadda alla yuu ka xidhin markaad geftidba toobadkeen walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala innii tubtu al'aan ilahay wuxuu leeyay toobad ma leh liladiina yacmaluuna sayi'aat kuwa xumaha caadaystay ee dhaqan iyo macbiil ka dhigtay macaasida iyo xumaha toobad ma leh goorma dee waa markaas xataa idaa xadara axadahum lmowt marka mid iyaga ka midihii geeridu ku timaado halkaasaa nafta ku soo ururta qararardhaq waa tawxiidka u qabta ma ka baxday ma ku jirtaa waa nool yahay soo yara fadhiisiya jiifiya mid dadkii dul jooga mid wuxuu leeyahay fadhiisiya mid wuxuu leeyahay war ka daayo fadhiisi jiifiya mid wuxuu leeyahay barkimaha loo geliyo mid biyo siiya mid wuxuu leeyahay caynkan faleebadii kuma soconayso nafti waa ku jirtaa markaasuu xusuustay wuxuu qooshan jiray iyo macaasidii iyo xumihii uu samayn jiray markaasuu wuxuu ilaahay soo tabinayaa oo inoo sheegayaayo inoo caddaynayaa kii hore u toobad keeni waaye rabbi u soo hoyan waaye alla u soo noqon waaye xaaladdu markay ku adag tahay oo jidhkii intii kale naftu ka soo baxday luguhiya gacmuhu ma dhaqaaqayaan intaa laabtay ku wareegaysaa waa socotaa markaasuu isleeyahay iminka haddaba alla ilaahay wixii ka soo noqo walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala innii tubtu al'aan lufirsa aayaddaas bilaahi calayk toobad ma leh liladiina yacmaluuna asayi'aat kuwa xumaha iyo macaasida samaynaya xataa idaa xadara axadahum lmowt marka ay geeridu ku soo xaadirto mid iyaga ka mid ah oo dabeetana uu yidhaahdo qaala innii tubtu al'aan iminkaan toobad keenaya kaa yeeli maayo ilahay leeyahy subxaana wa tacaala rasuulku muxuu yidhi sal alla alay wasalam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugarqir wa fii riwaayatin maa lam tatluc ashamsu min maqhribiha ilaahay toobadda addoonka wuu aqbalaa intaanay naftu halkaa cunaha ah aanu dhuun yeerin oo halkaa isugu soo ururin ama aanay cadceeddu gabal u dhac ka soo bixin ilahay inta ka horraysa toobadda waa aqbalaya qofkii muuminka wuu gafaya wuu khaldamaya oo bashar baa tahay oo naf iyo shaytaan ayaa ku weheliya waxaad marka inbaa laga yaaba inay wax badan oo xumaana kugu kalifaan laakiin durtabadee iska daba tago isqabo iskaga daba ina aladiina taqow idaa masahum طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كو الله كعبصتي هدي الشيطان كحما كتابته اسكو وريغيين بلايدا شياطينتا انسيغي جين كخدونا oo qofku khaldamo oo macaasi dambi ka dhaco markii uu iska wariyaa soodiga khaldamay soodiga ilaahay ku gafay war soodiga macaasidii xumaanta ku jira war Allah toobad keen ilaahay waa ku soo noqday Allah uu cafi Allah uu saamax wacinka sida awgeed baa habeenkii markaad seexanayso intaadan seexan waa inaad maanta waagu intuu bariyo dib u xusuusataa wixii kaa dhacay intaad xusuusan karayso adoo Allah u toobad keenay oo dadaalay oo toobadkeen la yimi oo weysaystay inaad hoyato markaa seexato waa shay laga hormaan dhalinyarada iyo shabaabku waxa la yiraahdaa الشباب ينقسم إلى 3 أقسام dhalinyaradu saddex u qaybsamaan كو شباب مستقيم ندل يرو توسن أقل وعنبو كسو بحي أما إلهي ببدي توسيي واتوسن يهيو وسقى إسدريا وعبادي سنية
إلهي بو كعب سنية دينتو كدق ميا دنتي سو يقانا شباب مستقيم ونندل يرأو توصن كاللبات شباب منحرف ونندل يرأى لكن إنما ما هو ويعسنيه صلاة كليتها بل بالودة يوحاسو استعمالا معاصي حمان بكل احتراء وضدي وعنيد بكبر سنيه كصدحات شباب متحير ومدور إرسان حقنا ماها كوا توصلنا كمتشيرو كون دي أنبضينا كمتشيرو مال رحو لح عياريا مال وقت كان يا جامعة أسبوع وصوح حاضريا قرآن كيبو آخرينيا ووردينيا قص أدنا واقوي بيحكوي كالله ميسانيا كل احترا مال با قول الله شاهيا حال كيسو مدقنا وكل يوم ورسنا هايو كرم بماي وحان سميو وعين كانوا isaga iswaala yade qofadu iswaalan de waalanaya marka inaad ka baydho kuwa baydsanna aad ka baydho ka wareersanna aad ka baydho aad noqotid nin dhalinyaro oo toosan ilaahay ishu kugu haya subhanahu wa ta'ala marka dadaashid oo qalbigaagu wacan yahay oo dadaalkaagu wacan yahay ku bari taariya ilaahay subhanahu wa ta'ala hora lagu dhigaya xagaagaaga kordhaya waxyaaba laga maarmaanka waxa kamid ah takhalluq bil khuluq al hasan akhlaaq wanaagsan inaad yeelato akhlaaq wanaagsan inaad yeelato waa laga maarmaan qofku ma noolaan karayo qof aan akhlaaq lahayn akhlaaq wanaagsan qof aan lahayn noloshiisu dayac bay ku jirtaa waxayna ka imanaysaa cilmiga iyo khayrka markuu qofku daalib yahay